habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawa idin hayana waxa kamid ah magaalada Boosaaso oo galabta lagu qabtay mid kamid ah kooxda argagixisada ah ee Daesh duqeymo loo geystay xalay kooxda Daesh oo tiro badan laga dilay iyo sidoo kale Asad Ismaan Diyaano Xasan Shire Abgaal iyo siyaasiyiin kale oo reer Puntland ah ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka ay Puntland ku jirto maxay ka dhaheen warbixinteena ayaa ku arki doonaa balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ay ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalkan leeg noo saarto gambareelkana furato si ay ku soo gaaraniin muuqaalada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxa galabta lagu qabtay mid kamid ah kooxda argagixisada ee Daesh kaas oo ahaa firxad ka soo baxsaday buuraha Calmiskaad ee kooxda Daesh laga sifeynayo ninkan oo ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso sheegeen inay soo qabteen shacabka magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inuu dhaawac ahaa kana soo baxsaday buuraha fog ee Calmiskaad ee dagaalku ka socdo waxa ciidamada ammaanka oo hadda gacanta ku haya ay sheegeen inuu qirtay inuu yahay Daesh ama uu ka tirsan yahay shabakada sidoo kale ciidamadu waxa ay sheegeen inuu ka soo jeedo dalka Morocco oo la sheegay in inta ugu badan kooxda Daesh ee ku dhumaalaysanaysa buuraha Calmiskaad ay dalkaasi ka soo jeedo shacabkii ninkan gacanta ku soo dhigay oo sheegay inuu damcay inuu baxsado balse waqti dheer kadib ay qabteen ayaa sheegay in markii ay gacanta saas ugu dhigeen uu damcay inuu jabiyo mobilkii uu gacanta ku sitay taas oo cadeysay inuu xog badan rabay inuu ku qariyo balse waxa la sheegay inaysan waxba gaarin mobilkiisa sidoo kale lamaha ammaanku waxa ay sheegeen inay jirto shabakad ama dad Soomaali ah oo ninkan u socday kuna soo dhaweysa kooxda Daesh magaalada Boosaaso balse ay sheegeen in saacadaha soo socda ay soo heli doonaan dadka Soomaalida ah oo ninkan u socday kooxda Daesh ee ka dagaalanta buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ayaa la sheegay in qorshahooda ugu weyn uu yahay in aan hal qof ama hal maxbuus laga qaban si aan xogtooda loo helin waana tankeetay in ciidamada difaaca Puntland aysan wali soo bandhigin hal maxbuus marka laga reebo dhowr Soomaali ah oo iyagu firxad ahaa meelo kale laga soo qabtay ninka galabta ay shacabku soo qabteen waxa uu damcay isagu inuu baxsado balse uma suurtagelin sidoo kale waxa uu damcay inuu jabiyo mobilkii uu gacanta ku sitay taas oo ay ciidamadu sheegeen inuu dad Soomaali ah kala hadlayay oo magaalada Boosaaso joogay iyagana uu socday saasna uu damacsanaa in mobilka uu jabiyo si aan xogtooda ama dadkii Soomaalida ahaa uu la xiriirayay xogtooda loo ogaan shacabka deegaanada Puntland ayaa iyagu door muhiim ah ka qaadanaya ilaa hadda dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh haday noqon lahayd taageerada iyo haday noqon lahayd inay iyagu yihiin ciidan ilaalinaya ammaankooda oo ay booliska u soo gudbinayaan cid walba oo ay ka shakiyaanin ama ay ka dareemaan inay wado dhaqdhaqaaq dheeriya dhanka kale saaxiibada caalamka ee Puntland ka taageeraya dagaalka dhanka cirka ah ayaa xalay duqeymo ka geystay buuraha Calmiskaad halkaas oo la sheegay in xubno badan oo ka tirsan kooxda Daesh lagu dilay afhayeenka ciidamada Puntland ku jira howlgalka Ilaac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay xalay duqeymo ay geysteen saaxiibada caalamka ayna halkaasi ku dileen in ka badan 35 horjooge oo ka tirsan kooxda Daesh sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo badan oo ay ka soo gaartay kooxda Daesh waxa uu sheegay in jab weyn ay xalay kooxda gaartay duqeymahaasna in aysan beeldaroobin oo bartilmaameedka loogu talagalay ayuu sheegay in ay duqeymahaasi xalay mareen dhanka kale Asad Ismaan Diyaano taliyaha booliska Soomaaliyeed Xasan Shire Abgaal iyo siyaasiyiin kale oo reer Puntland ah oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taageeray dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda argagixisada ee Daesh ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland siyaasiyiintan oo dhamaantood ka soo jeeday Puntland ayaa sheegay in ay taageersan yihiin dagaalkan sidoo kalena uu yahay dagaal xaq ah oo loo baahan yahay in si dhab ah loo wajaho shacabka iyo guud ahaan ciidamada Puntland waxay ugu baaqeen inay midoobaaniin oo dagaalkan ay ka midoobaaniin sidii kooxdan buuraha Calmiskaadna looga soo afjari lahaana ay u midoobaaniin daawada haddii halkan nala soo gaartay wax ka codsanaya in YouTube-ka ay ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka leeg noo saarto gambaleel kana furato si ay ku soo gaaraniin muuqaalada maalinlaha halka ku soo gudbino